الأحبة بني آدم كو وذا الشركة دنبو أركا بني آدم كمر مو غني النقدان مجرو وذا الشركو يمدن مضو وقوة معنوية وأنا قوة مادية وأود حق معنى هان يساكولوجيكال هان وأود مادية هدي سياستي هدي دقالتي هدي دلتي هدي دطاي وأود ما أنت عصر قرن إنه شغلنا مثلا الدولة ده وحوق بدن له مريكان waxa la yiraahdaa GDP wax soo saarka wadanku wuxuu marayaa 25 trilyan sanadkii laakiin wuxuu arkay in aanu haddana isku filayn oo u baahan yahay ururo dhaqaale oo urursado dad uu soo dumo ururo askari oo ka tirsanaado taxalufaad inuu yeesho isagoo tariyahaana 100 milyan ah dhaqaalahaana 25 trilyan wax soo saarka sanadkiisu yahay Yurub iyadoo dawlado yaryar oo marka dunida loo eego xoogan 3 trilyan 2 trilyan 4 trilyan soo saar leh haddana waxay aragtay dunida maanta la joogo inaanay waxba ka noqonayn isku ururta mooyaan markaasay soo tagtay iyadoo wax soo saarkeedu 15 trilyan yahay maraykan 25 kiisiyo 15 ka kale arka intuu isku daro inuu dunida kale ku gumaysto jayno dunida u tira badan oo wax soo saarkiisu 18 trilyan ka badan yahay dadna u tira badan baa arka isna inaanu kaligiis ku filay kasoo raadiyay isna inuu wax kala abuuri karo saawgeed buu samaystay BRICS India oo dalkii labaad ama koowaad ba noqonayo tira ahaan inuu ku darsado Brazil in lagu soo daro South Africa in lagu daro Iran in lagu daro labada hore mooyaane xataa qaaradaha ma wadaagaan waa kala durugsan yihiin dadka inta soo qaaradood ku nool ba waxay arkeen taxalufaadka kale inaanay iska dhicin karayn inay yana maxay inay isu tagaan mooyaane لكن مسلم كلا يريد أمة واحدة باته لحية كنتن دولة دود ومرية بل لحية كنتن كاسي أيام كوكنا سنين إني سيوة الجوغات أسيك في القمية والله دي هرد يسكت دي أيام إني قروران كوني واحد طبعا إني كلا في القمان والصومالي وليبيا والسودان وسوريا والعراق وانت كلا هوستك جوحيسا marka waxaan leenahay lababa inaynu si dhab ah u rubaynaa u baahan tahay dunida inaad wax ka noqoto inay ku xidhan tahay tiradaada iyo tayadaada iyo dhaqaalahaaga iyo waxaaga taasna inaad wax iska dhicin karin inaad cid badan tahay dhaqaale iyo dadba mooyaan dunida maanta la joogo beelan noolaan maayaan inagu beelaynu nahay beelo nolol kuma leh markaan khilaafkuna xun yahay wada jirkuna wanaagsan yahay waa fikrad aadanaha oo dhan rumaysan